Saaxiib yaal waxaad ku soo dhawaataan ciyaarihii ugu dambeeyay ee tartanka ugu xiisaha badan ee Yurub ee Champions League oo caawa la ciyaari doono, iyo sidoo kale kulamadii xalay la ciyaaray ayaan fiirin doonaa. Asxaabta ha iloobin inaad barnaamijka like saartaan, subscribe saartaan si aynan idin dhaafin wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Aan ku bilaabno, xalay waxaa la ciyaaray 4 kulan oo muhiim ah, kuwaasoo kala ahaa Liverpool iyo Galatasaray iyo Bayern Munich iyo Atletico Madrid, iyo sidoo kale kooxda Tottenham iyo Newcastle iyo kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Barcelona, kuwaasoo ay 2 kulan ka mid ah ay sheegeen in la xaqiijiyay wareegga lugta hore, kuwaasoo kala ah Atletico Madrid iyo sidoo kale Bayern Munich, kuwaasoo la sheegay inay sii xaqiijisteen. Sidoo kale waxaa draw la geliyay kooxda Barcelona oo 1-1 ay la gashay kooxda Newcastle. Aniga waa idin sheegay mar hore inaysan awood isku ahayn kooxaha La Liga iyo sidoo kale kooxaha Premier League. Mar walba waxaa awood badan kooxaha ka ciyaara horyaalka Premier League oo ah kooxo aan caadi ahayn. Haddeer u fiirso, xitaa haddii kooxooyinka La Liga lagu aadiyo kuwa heerka labaad ee Ingiriiska sida Leicester iyo Southampton, waxaan hubaa inay kooxooyinka Ingiriiska mar walba yihiin kooxooyinka ugu firfircoon ama ugu awoodda badan ee Yurub. Xalay Newcastle barrage ayay gashay, waxaana la filayay in laga badin doono kooxda Barcelona, taasoo nasiib ku keentay gool barrage ah oo 90 uu dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Lamine Yamal, kaasoo penalty uu dhaliyay. Newcastle way dadaaleen, shoot on target ay sameeyeen, halka Barcelona kaliya ciyaarta 2 shoot on target ay sameysay. Balse Pedri oo hadlay wuxuu yiri, waxaa noo balan ah Camp Nou, waxaynu sameyn doonaa sidii aan ku sameynay ayuu yiri Atletico Madrid. Balse tani waa koox iyo Premier League ka dhisan, taasina waa koox La Liga ka dhisan, waxaana u dhexeeya farqi weyn. Runtii isku midna ma ahan kooxooyinka kale ah Newcastle iyo sidoo kale Atletico Madrid. Si walba Newcastle ayaa waxay ka adag tahay Atletico Madrid, inkastoo waxaana ay kubadda cagta yihiin oo ay si walba isugu bedeli karaan. Sababta haddii aan fiirino kulamada caawa ugu waaweyn ee la ciyaari doona, waxaa jira kulan weyn oo la wada sugayo oo u dhexeeya 2 koox oo si weyn u xifaaltama oo ka wada dhila La Liga iyo sidoo kale Premier League. Ku kulanka jira kaalmaha labaad La Liga, mid ay ugu jirtaa kaalinta labaad, midna Premier League ay ugu jirtaa kaalinta labaad, waana kooxooyinka la kala yiraahdo Real Madrid iyo sidoo kale Manchester City. Real Madrid oo uu ka ciyaaraan لاعبين waaweyn, halka Man City ay joogaan لاعبين waaweyn. Sidoo kale waxaynu eegi doonaa 6 kulan ee ugu dambeysay ee kooxaha Man City iyo sidoo kale Real Madrid waxa ay ku dhamaanayeen. 6 kulan ugu dambeysay haddaan fiirino, kulankii ugu dambeeyay Man City ayaa waxay ku badisay 2-1, kulankii xiga Man City ayaa waxay ku badisay 4-3, kulankii xiga Man City ayaa waxay ku badisay 3-1, kulankii xiga barrage ayaa la galay, kulanka xigana waxay Man City ku badisay 4-0, taasoo ahayd markay qaadeen Champions League 2023. Sidoo kale wargeysyada ugu weyn maxay ka yireen, waxaana lagu ciyaarayaa garoonka Bernabeu oo ah garoon aad iyo aad u weyn, baaxadiisu ay weyn tahay, kooxooyinka waaweynna inta badan dhibcaha looga dhigo. Sidoo kale Valverde oo hadlay wuxuu yiri, caawa si walba ha ahaatee waxaa naga go'an inaan wax ku badino anagoo joogna garoonkeena ayuu yiri. Si walba oo ciyaartoyda Real Madrid dhaawac ugu maqan yihiin ayuu Valverde yiri, Real Madrid waa isla Real Madrid. Wuxuu ku tilmaamay inay yihiin boqortooyada Yurub oo Champions League oo ay haystaan 15 Champions League ah. Haddii aan fiirino saaxiib yaal, kulanka labaad ee u dhexeeya kooxaha PSG iyo sidoo kale Chelsea waa kulanka labaad ee ugu xiisaha badan ee caawa laga ciyaari doona horyaalka UEFA Champions League. Waxaynu ognahay in labadan kooxood ay horey u kulmeen finalkii World Club Cup oo ah finalka ay Chelsea ku badisay 3-0, taasoo ay keentay inay PSG aad uga xanaaqdo guuldaradii ay kala kulantay 3-0 ahayd finalkii koobka kooxaha adduunyada.
Haddii aan fiirino, Luis Enrique ayaa waxa uu sheegay inta aan la sameyn isku-aadka kahor inuu aad u rabo in lagu soo aadiyo kooxda kubadda cagta Chelsea si uu u argoosto waxa ay ku sameeyeen marka ay ciyaarayeen finalka koobka kooxaha adduunyada. Sidoo kale Fantino oo dhankiisa hadlay wuxuu yiri, "Caawa waynu argoosan doonaa si walba ha ahaatee." Macalinka cusub Chelsea oo isna ka yimid horyaalka dhankaas iyo League One-ka ayaa isagana wuxuu sheegay inay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin maadaama ay ku soo aaday kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain, iyagoo sheegay inuu kasayo xeelad uu ciyaaro. Macalinka Luis Enrique ayaa waxaa yiri macalinka kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Haddii aan fiirino taariikhda 8 kulan ee ugu dambeysay ee ay ciyaareen kooxaha Chelsea iyo sidoo kale PSG, 2 ka mid ah Chelsea ayaa guuleysatay, 3 ka mid ahna waxaa guuleystay kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain, halka 3 ka mid ah bareejo ay galeen, waxaana la iska dhaliyay 11 gool ayay dhalisay Chelsea 8 kulan ee ugu dambeeyay ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain, halka Parisna ay dhalisay 10 gool 8 kulan ee ugu dambeysay ay ciyaartay. Haddaba saaxiibayaal, jadwalkan waxaa idinku tusayaa farqiga u dhexeeya 5 kulan ee ugu dambeysay kooxaha Chelsea iyo sidoo kale Paris Saint-Germain iyagoo jooga horyaaladooda ama koobabkooda u gaarka ah. Haddii aan ku bilaabno kooxda kubadda cagta ee Chelsea, 5 kulan ugu dambeysay mid ka mid ah 4-0 ayay kooxda Hull City ee FA Cup-ka ku garaacday, waxayna timid kooxda Chelsea Premier League ayay timid 1-1 ayay la gashay Burnley. Isla sidaas waxay timid Premier League, Arsenal ayay kala kulantay iyadoo 2-1 Arsenal ay ku badisay. Sidoo kale isla Talaadadii waxay aaday kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Aston Villa, taasoo ay kaga badisay 4 gool iyo gool. Balse Sabtidii ugu dambeysay ama Axaddii mid ka mid ah waxay u baxday kooxaha lagu magacaabo Zerbida iyadoo la ciyaartay FA Cup-ka, taasoo 4-2 ku badisay. Chelsea waxay guuleysatay 5 kulan ugu dambeysay 3 ka mid ah, halka 1 kulan ka mid ahna ay loos gaartay, 1 kulan ka midna ay draw gashay. Haddii aan fiirino kooxda Man City, kulanka oo Champions League waxay la ciyaareen waxay la ciyaareen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Monaco, taasoo ay ku garaaceen 3-2. Sidoo kale waxay aadeen League One-ka waxayna kooxda Metz lagu magacaabo ku garaaceen 3-0 iyagoo ku ciyaaray gurigooda. Isla lugta labaad ee play-off-ka Champions League waxay u baxeen kooxda Monaco iyo 2-2 ay la galeen, balse waxay aadeen Sabtidii kooxda kubadda cagta lagu magacaabo Le Havre oo ay kaga badiyeen 1-0, halka ay 3-1 ku garaacday kooxda Monaco. Dabcan ayaa guul gaartay kulan ka tirsan League One-ka. 5 kulan ugu dambeysay Paris Saint-Germain 3 ka mid ah ay guuleysatay, 1 kulan ka mid ah lost ayay waxay ka soo gaartay kooxda kubadda cagta ee Monaco, 1 draw waxay la gashay Monaco. Taasna waxay ku tusinaysaa in labada kooxood ay 5 kulan ugu dambeysay ay isugu mid yihiin status-kooda, balse wax walba caawayna arki doonaa. Luis Enrique ma kulmeyn doonaa hajabaadii uu diray kooxda kubadda cagta Chelsea, mise Chelsea way isaga celin doontaa kooxda PSG? Aragtidaada waxaad ku soo qortaa commentiga. Saaxiibayaal, haddii aan fiirino kulanka xiga wuxuu u dhexeeyaa kooxaha kubadda cagta ee lagu magacaabo Sporting Lisbon iyo sidoo kale kooxda BK Getty Clement. Kooxda BK Getty Clement oo ka ciyaarta horyaalka lagu magacaabo Norway ayaa waxay garaacday kooxooyin waaweyn oo ay ka mid yihiin Manchester City oo ay 3-1 ugu garaacday qayb ka tirsan lugta 8 hore ee Champions League. Waxay play-off la ciyaareen Inter Milan oo ay 2 kulanba garaaceen. Sidoo kale waxay garaaceen Atletico Madrid, balse Porto iyaduna waa koox aad u fiican oo aad heysatana ciyaartoy farsamo badan, taasoo ay kaga soo baxeen play-off-ka kaga badbaadeen, waana kooxda kaliya ee ka socota Portugal. Kulankaas ayaa la filayaa in labada kooxood dhanba uu dhaco. Haddii aan fiirino kulanka xiga wuxuu u dhexeeyaa kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Bayer Leverkusen. Arsenal waa hogaamiyayaasha horyaalka Ingiriiska, sidoo kale Arsenal waa kooxda kaliya ee guuleysatay 8 kulan ee ay ciyaareen Champions League iyagoo keensatay 24 dhibcood. Arsenal sanadkan sidoo kale waxay garaaceen kooxooyin waaweyn oo ay ka mid yihiin Inter Milan,
Atletico Madrid iyo sidoo kale kooxda Bayern Munich, kuwaasoo ay ku garaaceen goolal aad u badan. Arsenal waxaa la filayaa inay si raaxo leh uga soo baxdo kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen, balse Bayer Leverkusen iyadu waa koox aad iyo aad u awood badan kana faa'iidaysata weerar celinnada marka ay helaan. Taasina waxay ku tusinaysaa in kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen ay tahay koox aan caadi ahayn, balse tani waa koox hogaaminaysa horyaalka Premier League. Arsenal waa koox weyn, taasoo ku tusinaysa inay si fudud uga soo bixi karto kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen. Saaxiibayaal, haddii aad nala soo gaartay, waxaan si naxariis leh kaaga codsanayaa inaad subscribe saarto, like gareysana si aadan u seegin kulamada ugu dambeeya ee laga ciyaari doono horyaalada waaweyn iyo tartanka Champions League iyo suuqa kala iibsiga. Saaxiibayaal, waad ku mahadsantahay daawashadiina.